بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا لها قيارتي أصحابتي أن جعل هاي جنال كيان واني وعيقلين كحران ولا ليال سودو هذا دمان ولا لها يقول سبنا سودوين يا سيدو كلا ولا لها فيسبوك بيج كيقولوا بتيك توك نجلس عدن سودويننا أخيار أصحابي ما أنتوا حدين هيا قصة صحيح سابسنتا وحيتاي dadka oo si wanaagsan loola dhaqmo oo waliba dabeecad wanaagsan lagula dhaqmo iyo waliba akhlaaq wanaagsan qaabkay maaragta dadka u soo jiidi karto ee islaamka waliba u soo jiidi karto hadii aad tahay qof muslim ah in qasabta in dabeecadaas iyo dhaqankaas laga helo qisadeena maanta waxay dhacday horta dhamaadka qarnigii inaga dhamaaday sagaashameeyadii waxaa jirin oday ah wuxuu ku noolaa wadanka Faransiiska asal ahaan ninkan wuxuu ka soo jeedaa waxay tahay wadanka Turkiga waxa uu Faransiiska ku lahaa meel meherad ah oo khudrad lagu iibiyo wadaadkaasi Ibrahim ayaa magaciisa la dhahay waxa korkiisa deganaa daartu isaga hoosteeda khudaarta ku iibinay korkeeda waxa deganaa qoys Yuhuud ah qoyskaas Yuhuudeed waxay lahaayeen ama waxa maartay dhaleen wiil yar wiilkaas yarna waxa lagu magacaabi jiray jaadadiisu waxa ahayd 7 jir markaas jaad waxa uu maalin walba iimaan jiray wadaadkaas waxa uu ka soo dooni jiray waxay tahay adeeg markaas reerka u baahan yihiin iyo khudaar iyo wixii loo baahan yahay marka khudaarta intii wadaadku u sii diyaarinayo asna wuxuu xadi jiray xabad shukulaato ah maalin walba sidaas ayuu ahaa la yaabka meesha ku jiraas waxay tahay wadaadkii Ibrahim ha uu ogaa wiilkaas inuu maalin walba xabad shukulaato ka xado laakiin se waxba muusan oranin weligiisna kuma qabsan maalin waxa dhacday wiilkii jaad ahaa inuu xabad shukulaatada ahaa inuu qaatay inuu ilaawo markuu ilaaway wadaadkii Ibrahim uu wacay wuxuu ku yiri kaale maxaa dhacay wuxuu yiri xabada shukulaatada ay qaadan jirtay aad ilaawday uu yaab wiilku wuxuu yiri sidee wuxuu yiri maalin walba xabad shukulaato Soomaaliya qaadan jirnaa maanta waa iska ilaawdu yiri maxaa dhaw qaadan weysi markaas wuxuu dhahay oo miyaadi ogeed markaas uu yiri haa waan ku ogaa waan kula socday buu yiri wuxuu yiri hadda maxay u sameynaysaa hadda ma reerkeena ay u dacweynaysaa mise wuxuu yiri booliiska ay u dacweyn doontaa midna ma sameeyay buu yiri laakiin hal shardiyan wataa muxuu yahay shardigaas wuxuu yahay buu yiri maanta wixii ka dambeeyay inaadan cid dambe waxba ka xadin ama anigaana hada ama qof karaan hado anigana shukulaatada bilaash baan kugu siinayaa maalin walba sidaas ay heshiis ku galeen wadaadkii Ibrahim ha iyo wiilkii Yuhuudeed ee jaad lagu magacaabi jiray waxa dhacday marka in wiilkii sidaas asigii wadaadkii ay ku noqdaan dad saaxiib ah dadka kalena isaga dhow maalin walba xabada shukulaatada uu siin jiray isagana sidaas ay maaragtaan ballantii uu qaaday wadaadku uu oofiyay wiilkii uu koray uu weynaaday maaragtaa wadaadkaasna xaafadooda intaas uu ku lahaa dukaankii maaragtaa ilaa wiilkii daahan uu ka soo gaaro da'da 20meeyada uu ku soo dhawaado ayaa maaragtaa wadaadkii halkaas dukaan ku sii lahaa dhalinyaradu waa idinkan arko meesha doonaan baa joogaan ama Yurub joogaan ama Afrika joogaan qofka dhalinyarada ah waa kan iska mashaakisha badan ee iska dhibaatooyinka badan ee mar walba dhacdhac badan marka waxa dhici jirtay waxay tahay wiilkii jaad ahaa inuu mar walba mashaakil dhaxda ka istaago oo mar walba caqabado iyo dhibaatooyin uu la kulmi jiray marka dhibaato mar walba dib la kulmo ulama laaban jirin ehelkiisii reerkiisii saaxiibo gaarana ulama laaban jirin laakiin wuxuu la soo laaban jiray wadaadkii Ibrahim ay xabada shukulaatada ku saaxiibeen markaas ayuu markii wadaadkan wuxuu ku oran jiray uu soo dhaweyn jiray uu dejin jiray wuxuu dhigi jiray kitaab uu soo qaadi jiray kitaabkaas waa kitaabkii wiilku u dhiibi jiray wuxuu dhigi jiray kala bixi waa kitaabka quraanka ah markuu kala bixiyo meesha doontid baad ku kala bixi si nasiiba kala bixi uu dhigi jiray uu kala bixin jiray markuu kala bixiyo wiilku waxa dhici jirtay waxay tahay in wadaadku uu akhriyo markuu akhriyo uuna u fasiro walibani waxa la yaab leh oo mucjiso ah mar walba uu wiilkaasi kitaabkaasi kala rogo mushkiladii uu ka cabanaya xalkeedii wadaadkan uga akhrin jiray laba beed buu ka akhrin jiray labadaas beedna mushkiladiisa ay u xalin jireen wiilkii isagoo faraxsan iyo iska tagi jiray waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah sidoo saas u ahaa oo mushkilad walba wadaadka ugu xalinay in wadaadkii Ibrahim ha uu xanuunsaday wadaadkii markuu xanuunsaday xanuunkiisa darnaaday meheradii uu iska xiray meheradii markuu iska xiray waxa dhacday waxay tahay in wiilkii jaad ahaa uu yimid maalmaha kamid ah oo arkay meheradii xiran markuu arkay wadaadkii buu booqday gurigiisii buu tagay dabcan gurigiisina uu garanay markuu gurigiisa tagay wuxuu yiri maxaa ku dhacay wadaadkii Ibrahim ha ehelkiisa waxay ku dhaheen Ibrahim waa xanuunsanaya waxa uu yaalaa isbitaalka ay ku booqday nasiib darase muddo yar kadib wadaadkii Ibrahim ha uu geeriyooday wadaadkii markuu geeriyooday wiilka dabcan aad buu u murugooday maxaa yeelay saaxiibkiisii runta ahaa ee uu sir walba u sheegin jiray ee dhibaato walba la xalin jiray baa ka geeriyooday markuu geeriyooday wiilkii wuu baxay wuxuu aaday reerkii tacsiidii uu kala qayb galay gurigiisii buu tagay reerkii uu soo tacsiyay reerkii markuu soo tacsiyeynay marka ayaa waxa la siiyay sanduuqaas ma garanaysaa waxa ku jiro kitaabkii baa ku jiro
markii sanduuqan wuxuu yiri oday markuu dhimanay wuxuu awlaadiisii ehelkiisa kula dardaarmay in kitaabkan la siiyo wiil la yiraahdo magaciisa Jaad wiilkii baa kitaabkii loo dhiibay wiilkii kitaabkii markii loo sanduuqii loo dhiibay raahday afwan sanduuqii markii wiilkii loo dhiibay wuu qaatay maalmaha kamid ah mashaakil sanduuqan uu garanaya uu arki jiray markuu wadaad ka soo bixinay kitaabka maalmaha kamid ah waxa dhacday waxay tahay inuu dhibaato ku dhaco dhibaatadii hadda yaa la xalinay wadaadkii Ibrahim uu dhinta asagana kitaabka ma yaqaan kitaabka ayuu soo qaaday laakiin uu arkaa kitaabka fartu ku qoran yahay faru garan kara maahan kadib waxa dhacday waxay tahay inuu la tago wiil u dhashay wadanka Tunis oo luqada Carabeed yaqaan wiilkii ayuu ku yiri kitaabkan waxaan rabaa inaa kitaabkii buu kala furay wiilkii buu dhigay wuxuu yiri laba beejo kamid ah ii sharax macnahooda markuu u sharxay falillahi alhamdu dhibaatadii uu ka cabanayay baa wiilkii xalkeedii uu halka ka helay markaas ayuu weydiiyay wiilkii wuxuu ku yiri kitaabkani muxuu yahay ma sixir baa markaas uu yiri ma sixir ma ahan haddaan muxuu yahay buu yiri mar walba aan kala furo mushkiladii aniga aan xalka u baahnaa ay xalinay markaas wuxuu yiri kitaabkan waa kitaabka ummadda islaamka ay haysato waa kitaabkeena quraanka ah waa kitaabkii nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo anagu aan aaminsanahay nabigeena ayaa lagu soo dejiyay markaas ayuu wuxuu yiri bal iga waran kitaabkan xagee buu ka yimid wuxuu yiri kitaabkan wuxuu ka yimid min ilaahay agtiisu ka yimid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu soo dejiyay waana kitaabka ummadda islaamka ay aaminsan yihiin ama ummadda muslimka ah wiilkii markii uu saas loogu sharxay oo wiilkii Tunis u dhashay wiilkan Jaad u sharxay oo warbixintaas uu siiyay Bujaad wuxuu yiri waxaan rabaa inaan soo islaamo sidee baan ku soo islaami karaa ogaado qoyskiisu waa qoys Yahuudiyiin ah waliba diinta Yahuuda aad ugu dhagan hooyadii walibana waa islaan aan laga marin baxaga diinta wuxuu yiri waxaan rabaa inaan soo islaamo way fududahay buu yiri wiilkii reer Tunis waxa dhaysaa buu yiri la ilaaha illa allah muhammadur rasuul yaani tawxiidkii buu sheegay wuxuu yiri ilaahay baa qirsan inuu ilaah kala jirin maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu yahay ilaahay adoonkiisa iyo rasuulkiisa sidaas markuu yiri sidaas uu ku muslimiintii Jaad ahaa ninka dhalinyarada oo Jaad ahaa daadiisu markaas adigu waa dhowr iyo 20 jir waxa dhacday waxay tahay in ninka wadaga sanduuqi uu ka helo aayada quraanka ah ee قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني waxaa dhacday waxay tahay wiilkii Jaad ahaa ee asalkiisa Yahuudiga ahaa in asaga sababtiisa ay ku soo muslimaan 6,000 oo qof oo reer Yurub ah 6,000 oo qof oo reer Yurub ah ayaa asaga sababtiisa ku soo islaamtay si uu yaani sida dacwada u fidinay nin dhalinyaro ah 20 jir diintii uu bartay kadibna wuxuu istaagay waxay tahay inuu dacwada fidiyo dacwadaas uu fidinay daraadiisna waxa ku soo islaamtay asaga sababtiisa 6,000 oo qof kadibna uu soo tagay wuxuu yimid waxay tahay Afrika markuu yimidna waliba qaasatan wuxuu yimid Suudaan markuu yimid baa waxa dhacday waxay tahay haddana in dad fara badan asaga daraadiisa ku soo muslimaan malaayiin ah asaga sababtiisa inay ku soo muslimaan ninka odaga wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa 2003 ayuu dhintay ilaahay u naxariisto wuxuuna la baxay waxay tahay jaadullahi fil qur'aan jaadullahi al qur'aan buu la baxay jaadullahi al qur'aan ayuu la baxay magacaas ayuu la baxay markuu dhintay 2 sano kadibna waxa diinta islaamka qaadatay hooyadiisii aan idin lahaa waxay tahay hooyo Yahuudiyad ah hooyadii sababtay ku soo islaamtay waxa weeyaan waxay tiri diinta wiilkay waxaan baaray noloshiisii uu ku qaatay dhalinyaranimo ilaa uu ka geeriyoodan uu faafinteeda waday anigana waxaan rabaa inaan diintaas raaco oo ku dhinto yaani juhdigii wiilkayga bixiyay daraadeed wuxuu kasbay juhdigii wiilkayga diintaas ku bixiyay daraadeed inay maaragtaa hooyadaasna soo islaamto ninka odaga qisadiisa waxaan rajeynayaa inay noqon doonto قصة عن وحكي فائدة مجعل وح أنا نحبك فائدة إن ماشي أسكول وذاقنا أو وقت جينا كضيعة أنا عاد وقت إسكضيعه وحرجينا إن عبرة نقندون وحرجينا وحتى أخلاق وناق إنه أنا ولا نقندون أصلا نفتي ده وورث وسلا مرة بدن بيدن ده ضدك هذه عن أخلاق وناكسن يا آداب وناكسن يا تعامل وناكسن يا لطف يدبع سنان كل دقنه وحي سوجي لسوي حتى ضدك قلوب هذا يعني ضدك دين الإسلام كما عرفته السوق جلان ولي بأيه وكسوق جلي قاب أن قصب بهم هاي ضد بدن أيوة عامسين حتى إن دين الإسلام كلية يكفاف السيف لكن دين الإسلام كأنت سيف كفافين وحكب بدن أنت كفافتي أخلاق وناك يدل الرقم وناك وحرجينا قصة سنين نقندونتو قصة إن شاء الله إلى إنكيس وحنا فائديسي وأن معركتها عبران كقاعدون دونه 10 فريمها أي بحين سنة إن شاء الله إلى إنكيس وحرجينا أن ضدك قرار رقم دونه أخلاق وناكسن أخيار يا أصحابي وما سنتي وحكم ما سنتي داوشيديني سيدو قرب بدنا لا إلى السعودان إن شاء الله فيديو حتى نقول منه حالة في قلت جاي حتى سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.